السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan waan asxaabta qaaliga ah mar kale iyo muuqaal kale maanta waxaan soo qaadanaa muuqaal kale muuqaalkeenan maanta waxaan ku soo qaadanaa sheekada waxay la magac baxday sida halkan baad ka arkaysaan Sosti Gordonyochina andi asaadmaj saddexdii saaxiib iyo ninkii fishermanka ama kalluumaystada ahaa Sosti Gordonyochina andi asaadmaj saddexdii saaxiib iyo ninkii kalluumaystada ama fishermanka ahaa saddexdii saaxiib ee marka laga hadlayo waa saddex kalluun oo saaxiib ahaa moraalka muhiimada sheekada gadaal ma ka sheegi doonaa marka hore sheekada ayaynu qaadanaa wanaagsan andi tele kure meel kure ama bali oo weyn bawasto yamanoru bisu asoch aluut waxa ku noolaa meesha baliga ah kalluun fara badan baa ku noolaa kure waxa weeyaan waa bali ama bondiga andi tele kure meel bali oo weyn bawasto yamanoru bisu asoch aluut waxa ku noolaa kalluun fara badan kainnazi hullu asoch makakal kalluunkan oo dhan dhexdooda kainnazi hullu asoch makakal kalluunkan oo dhan dhexdooda Sosto iyo Garbi Gordonyochina saddex ayaa marka ahaa saaxiib isku dhow sidaan ognahayba hadiyo goor ama binaadan ha ahaadaan ama nool kale ha ahaadaan meel ku wada nool hadiyo goor waxa jira dadka kale ee meesha kula nool iskaga dhow oo saaxiib dhow noqda halkana marka waxa jiray saddex kalluun oo saaxiib dhow ahaa oo kalluun kale dhan oo meeshan kula noolaa dhan iskaga dhawaa kainazi hullu asoch makakal kalluunkan oo dhan dhexdooda Sosto iyo Garbi Gordonyochina saddex ayaa waxay ahaayeen saaxiib dhow hulgizeem abroonacho hadiyo goor waxay ahaayeen kuwa wada jooga oo aan kala dheerayn andaacho kale la joogoon ay tawoon midba midka kale sidekiisa ama dhinaciisa lagama waay jirin ama kama dhaqaaq jirin andaacho kale la ogoon ay tawoon midba midka kale dhinaciisa lagama waay jirin ama kama tagi jirin andigan hadaba maalinba andi asaadmaj warasi kureemada nin kalluumaysta ayaa meeshii bondiga ama balliga ay ku noolaayeen kalluunkani yimid muxuu rabaa kalluun buu rabaa uu soo kalluumaystay andigan hadda maalinba andi asaadmaj nin kalluumaysta wadasi kureemada meeshii balliga ay ku noolaayeen kalluunkani ayuu soo doontay kalluun oo uu yimid bisu asaawojin pamayatu meeshii markuu kalluun badan uu ninkii ku arkay leeloch asaadmatoj niman kale oo kalluumaysata ama cid kale oo magaranaysa ay kalluumaysta kale marabinditulu gaabasa inay magaranaysa ay tukaasi deerneed inay shabagooda ay ku tuurtaan ay ka kalluumaystaan ay meeshii ugu yeedho ku soo maasuumay kalluun fara badan baa meesha ku noole soo yaaca buuri bisu asaawojin pamayatu markuu meeshii kalluun fara badan uu ku arkay leeloch asaadmatoj niman kale ama cid kale oo kalluumaysata marabinditulu marab waxa weeyaan waa shabaga weeyaan inditulu inay ku tuuraan ama kaasigarayaan magaranaysa shabaqooda ayuu gaabasa ku soo maasuumay meeshii haddaba saddexdii saaxiib ee sheekada ku saabsanayd soo saasoch saddexdii kalluun baasa admatoj nimankan kalluumaysatada ah taysow inta ay qabtaan silamigodhulu maadaama ay dilayaan oo aysan magaranaysa ay harseexinin ishannaqalu walwal baa galay iyo fikir soo saasoch baasa admatoj taysow silamigodhulu iyo jannaqalu saddexdii kalluun haddaba nimankan kalluumaysada maadaama inta ay qabtaan ay dilayaan walwal iyo fikir ayaa galay bamakaa kalaajow yaaluud dababanya asaawoj haddaba kalluunka qaar ka mid ahaa oo dababanya ama maskax badnaa ayaa taliyey sida aynu ka warqabno hadiyo goor cid kasta oo meel kooda nool hadday dad yihiin iyo hadday nool kale yihiinba qofba hadiyo goor rool buu ka ciyaaraa midbaa fikirkan ku fiican midbaa qabqabtii dagaal ku fiican midbaa ma garanaysaa isagu rool kale ka ciyaara bulshada ama cidda uu leeyahay dhexdeeda haddaba mid dabaabaya oo ma garanaysaa kalluun ka mid ah oo maskax badnaa ayaa wuxuu yiri leela kure falligan intaynu balli kale aynu raadsano bafatnad kasi tanasten mahid allaban halkan inaynu si degdeg ah aynu uga baxno oo aynu balli kale raadsano weeyaan yalaalo saasuuri ba makaa kalaajow yaaloo dababaya asaawoj kalluun kale oo ma garanaysaa ay ka mid ahaa kalluumadan oo maskax badnaa ayaa wuxuu yiri leela kure falligan bafatnad kasi tanasten mahid allaban balli kale inay raadsano oo aynu halkan si degdeg ah aynu uga baxno weeyaan saasuu yiri ande asa sismaama saddexdii haddaba mid ka mid ah marka kan soo jeedinaya waa saddexdii kalluun mid ka mid ah oo kalluumada kalena ka mid ah weeyaan marka saddexdii mid ka mid ah ande asa sismaama mid markii uu ogolaaday oo agrigareeyay fikirka la soo jeediyay leelayaw yee kure beetaajow indihonu salamismaaw inbitayano kii kale maadaama dareemay meeshan in gurigoodu yahay inbitayamna uu diiday oo ka soo horjeesaday andi asaasis mama hal kalluun markii uu ku raacay
leelayaw yee kure beetaajow indhahoonu silamsamaw kii kale maadaama dareemay meeshan hadda ay ku nool yihiin gurigoodu yahay in bitayamno isagu waa u diiday ama uu kasoo horjeestay fikirkii wuxuu yidhi yafaari bahir maasayet yallabanim inaynu dhaqan fulinimo aynu muujino maaha yee kure beetaajinnow ilaal balligan waa keenii ayuu yidhi yafaari bahir maasayet inaynu dhaqan fulinimo inaynu muujino maaha buuri yallabanim ma aha buuri yee kure beetaajinnow ilaal kani ama balligani waa gurigeenii ayuu yidhi leelochu hulatu asaawooj goodhanyaajow lamaasaaman haddaba labadii kalluun ee kale goodhanyaajow lamaasaaman saaxiibkood sida ay magaranaysa ay u qancin lahaayeen bisuub mookurum wax badan markii ay isku dayeen altasakaalaajum kumay guulaysan ama umay hagaagin leelochu hulatu asaawooj labadii kale ee magaranaysa ay kalluunku ayagu meesha in laga tago ogolaa goodhanyaajow lamaasaaman saaxiibkood inay ku qanciyaan inuu isaguna meesha uu kala tago u raaco bisuubi mookurum in badan markii ay isku dayeen altasakaalaajum umay suuragelin ama kumay guulaysan arrintaas iyada ah silasii talaytow sidaa darteed in ay kala tagaan oo ay kala baydhaan adhiis kuree lama falag wasanu oo ay balli kale oo cusub raadsadaan ayay iyagu go-aansadeen silasii talaytow sidaa darteed inay kala tagaan adhiis kuree lama falag wasanu oo iyagu ay balli kala raadsadaan ayay go-aansadeen bamaagisu haddaba next day ama maalintii ku xigtay asaad maajooj simadu nimankii kalluumaystada markay yimaadeen asaad maajooju simadu nimankii kalluumaystada marka ay yimaadeen oo ay kalluunkii soo doonteen lama hid fagaadhaya yaal hoonu asaawooj kalluunkii go-aansaday ama kalluumadii go-aansaday ma garanaysaayey ama aan ogolaan in ay iyagu tagaan lama hid fagaadhaya yaal hoonu kalluumadii in ay tagaan ma garanaysaayey aan go-aansan ee meeshii ku hadhay taysow inta ay qabteen yimootaalo ayay dileen oo ay saasi ku dhinteen asaad maajooju simadu nimankii kalluumaystada markay yimaadeen maalintii xigtay lama hid fagaadhaya yaal hoonu kalluumadii aan ogolaan in ay tagaan taysow yimootaalo inta ay qabteen ayay dileen sinamigbar haddaba mooraalka iyo muhiimaddu sheekadu maxay tahay sinamigbar haddaba mooraalka iyo muhiimaddu sheekadu maxay tahay hulgizee tilkun misal yimalkatu had iyo goor the bigger picture fikir sawirka weyn had iyo goor yimalkatu waa inaad eegtaan inaa bajagirgize gizeyawi guyunataajin yitawu xilliga inaa bajagirgize xilliga dhibaatadana gizeyawi guyunataajin xiriirada temporariga ah ee magaranaysa waqtiga koobana xiriirada temporariga ee waqtiga koobana yitawu iska daaya oo imka kalluunkani muxuu eegayaa temporary attachment buu eegayaa ku dhegsanaan ku meel gaar ah oo waqti kooban ayuu eegayaa the bigger picture hadduu eegi lahaa oo survivalkiisa badbaadadiisa dee ma garanaysaayey wuu badbaadi lahaa laakiin wuxuu eegay ma garanaysaayey isla meeshii waqtigaa ku noolaa inuu aamino oo ma garanaysaa ka tegi kari waayo ayaa keentay in uu naftiisa ku waayo marka muhiimadda sheekada waa isla fahanaan filayaa muuqaalka xigo intaan ku kulmino nabadgelyo